السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة يا برنامج كيني تحناها يا أنو كسميني سلسلة دعان كأهيد يا الصوماليين يا سينلي تاسو أنو قوانساني يا أنو دب أسو عسمونيسينو يادو مقال يا قرآن لبدا بقى هدابا waxaynoo joogtay heestii 13aad ee kamid ah heesaha caanka ah ee silsilada Siinley kaasoo uu noo tirinayay nin asagu si madax bannaan isaga soo galay silsilada oo aan cidna taageerin cid gaarana aan weerarayn kaasoo magaciisa la oran jiray Axmed Maxamed. Haddaba maanta waxaanu idin soo gudbinaynaa heestii 14aad ee kamid ah heesaha ugu caansan silsiladaas Soomaaliyeed ee Siinley taasoo magaceeda la yiraahdo Geelba Sibir Godan. Haddaba heesta Geelba Sibir Godan waxaa noo tirinaya nin la oran jiray Maxamed Siciid Cismaan oo laguna naanaas jiray Weydaar. Haddaba sida la sheego Maxamed Siciid Cismaan Weydaar ayaa wuxuu garaaci jiray heesaha Siinleyda markaasuu go'aansaday inuu asna bal ku soo biiro. Heestii Geelba Sibir Godan waxay ku bilaabanaysaa sida tan: sanadahan adduunyadu way saymo badato siinay xogteediyo sanqaraha fitnaan iyo waxa soo raglaayee sunsumaya dhiigii waxa muruqa seedaha xabaduhu u saafeen ninka suurka tumayow ma waxaan ku solinbaa. Siinleydu waxay tiri ninba soodin kale iyo halkuu saaka jooguu seeraha ka ooto calankiisa saaraye adiguna siraaday sahankaaga noo sheeg. Siinleydu waxay tiri saxansaxada roobkee saakaba ku haysiyo waa saac adduunyadu bele kugu simayso salaankay ku korisaa kula siiban doonee adiguna siraaday sahaydaada noo sheeg. Siinleydu waxay tiri waxaan sugayay saxarlaay inaad gacan isiiso sahlana umuurana sunta wada afuufnee mar haddaad saboolnicid waa saban xumaadee sii daysay geenyada samir eebbe weeye. Siinleydu waxay tiri samawada hadraawow ninka maanta salalee samir qaadan waayow waxay suuban leedahay halkaan saaka joogaa waa saba ayaan liyo guri seerma weydo rabbi ubax ka saaro ninba meel ka seertee. Waa erey su'aal ahe Siinleydu waxay tiri bishu waa 9aad waa sanad kaliileed waa sool abaar iyo saranseer gu jiilaal waa 9 gu hooro surmi iyo haraad loo siigadii dalluuntaa samadiiba awdoo malaha waaba siganaye eebow sidii roon. Siinleydu waxay tiri xalay baa saqdii dhexe socotadii dhowaan timid sahan aanu kulanno inta saaka joogtaa tahay Geelba Sibir Godan waan helay sirtoodoo waa dood sandahan iyo murti aan la suginoo ninba saab u geliyo ka labaad ka saaree waxay suuban leedahay waa aayad sare oo waa silsilada naaro waa samaydii muusiyo xarig lama sitaano ninka si xun u sheega kama samata baxayee ila soco waxgaradow. Siinleydu waxay tiri samawada hadraawow ruux jacayl sawaabo caashaqusa kala maray inuu soorta kaa cuno ama socodka hidiyaa suuroobi mayse dhaaxaan samraayaad sirta dhaadi weydee nafsi meerta sugayaa soddon guuradiisii saaka loo walqalayaa waa sahayda aadmigu sama kuu qadariyaa ma haddaasa waxankiyo waan soo socdaa kow saxarlaay ha fududaan cidi kuugu sacabtumi haddaan saami kaa maqan seeftaadu kuu goyn ma baryaa rag kaa siin
geelaaga sula lumay. Siinleydu waxay tiri, sidigtaa dhalaysee, dadku wada sugaayana. Waa horay sidkeedii 3 laab u qaadoo, wax kaloo ka salaglay, ku sidaa caloosho, sida faalku leeyahay, kolay sayn cad maahee. Allow sahal umuuraha. Siinleydu waxay tiri, sacab xeel la'aaneed miyaa laga sanqariyaa, 30 beri adoo qaday. Soor qur la'aaneed sahal looma qaato, guul laguma seegee. Intay xaajo sidan tahay, ama qoofal suran yahay, seetadu ku xiran tahay, talo haysa sidatoo, biday tahay sir iyo caad, hala saari waaye, hadal waan 3 maray. Haddaba intaas maanta ha inoo joogto heestii 14aad ee silsiladaas caanka ah ee Siinley, taasoo uu noo tirinayay nin lagu naynaasi jiray Weydaar. Haddaba saad soo aragteen, Maxamed Siciid Cismaan Weydaar ayaa waxaad moodaa sida heesta ka muuqataba inuu xoogaa dhinac la safan yahay ninkii la oran jiray Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi.